وعن حبله موقي قرح هلا الواثروني هلا وين ملكي يقبني مولك لسيه كلامودان مركاد وهشتت وذا جير موستاني كلامودان مركاد وهشتت وذا جير موستاني كلا وعن حبله موقي قرح كلا الواثروني هلا وين ملكي يقبني مولك لسيه كلامودان مركاد وهشتت وذا جير موستاني كلامودان مركاد وهشتت وذا جير موستاني ورسوي عاوب هداد نولل وذاكتيني اسكوارا وحان ملكدي او قاري وياني ورسوي عاوب هداد نولل وذاكتيني اسكوارا وحان ملكدي وقاري وياني ودنيان استورتاتي نولل وذاقاي ودنيان استورتاتي نولل وذاقاي البولة يسود باتي لابد وحيودي او بدقبي ويل البلا وينيدسي او بدقبي ويل البلا وينيدسي البولة يسود باتي لابد وحيودي او بدقبي ويل البلا وينيدسي او بدقبي ويل البلا وينيدسي وهبينتي Somali World YouTube channel. waxaad tahay hilaac wala yidhi nuurkii waa bariye waxaad tahay xariid wara lamaana istoorta waa daxabo dariiqa wanaagsan lama diiday dokhii calab ha isku keendara dokhii calab ha isku keendara lamaana istoorta waa daxabo dariiqa wanaagsan lama diiday dokhii calab ha isku keendara dokhii calab ha isku keendara daqaay labadeenu aan tarisne dubaaqiya laabta kaa doone way dawada noloshiyo dani la garo daqaay labadeenu aan tarisne dubaaqiya laabta kaa doone way dawada noloshiyo dani la garo daleed waxa dhaanta dugsiya guriye dayn baan ka baryaa inaynu
tagno deqay ubad aynu daadihine ku soo duro aynu daadihine ku soo duro aynu daadihine daleed waxa dhaanta dugsiga guriga dayn baan ka baryaa inaynu tagno deqay ubad aynu daadihine ku soo duro aynu daadihine ku soo duro aynu daadihine dabciga waxan baan ku diirsadayo dar alle quruxdaada way deeqdo daymada indhaha ku doogsada daymada indhaha ku doogsada dabciga waxan baan ku diirsadayo dar alle quruxdaada way deeqdo daymada indhaha ku doogsada daymada indhaha ku doogsada deqay waxa tahay darmaan ugubo dalkeennana lagu aroosayo tamaashaadka loo dabaaldego deqay waxa tahay darmaan ugubo dalkeennana lagu aroosayo tamaashaadka loo dabaaldego daleed waxa dhaanta dugsiga guriga dayn baan ka baryaa inaynu dogno deqay ubad aynu daadihine ku soo duro aynu daadihine ku soo duro aynu daadihine daleed waxa dhaanta dugsiga guriga dayn baan ka baryaa inaynu tagno deqay ubad aynu daadihine ku soo duro aynu daadihine ku soo duro aynu daadihine waxaan toos loo arkayn anigu ma tibaxaye waxaase tirabaya tusmada reerka unkamay inuu taariikhda galay arooska taabagale allowkii lagu tarme farxadna lagu taransade tagnaada allow ka yeer allow ilaahow ka yeer waxaan toos loo arkayn anigu ma tibaxaye waxaase tirabaya tusmada reerka unkamay inuu taariikhda galay arooska taabagale allowkii lagu tarme farxadna lagu taransade tagnaada allow ka yeer allow ilaahow ka yeer khadaro waa taabtayo badhadhahaad ku tamaysiyo tufaaxiya dul heshe katali horumarinta qoys tixgali tiirka axdiga katali horumarinta qoys tixgali tiirka axdiga la tixgali tiirka axdiga khadaro waa taabtayo badhadhahaad ku tamaysiyo tufaaxiya dul heshe katali horumarinta qoys tixgali tiirka axdiga katali horumarinta qoys tixgali tiirka axdiga la tixgali tiirka axdiga
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد مرتدى شرفت له هل كان ما أنت وحين وفدنا سيدي دقن كوا أهيد أوسون نغنغن شرتي حفلة مهر حفلة مهر oo aynu qabanayna maanta cabdi oo inta badan anagu aanu bahdayada aqoontu u garoon ognahay Mustafa Soodi iyo walaasheen Hodan Ibrahim Ismaaciil Qarayare ama Hodan Ibrahim Ismaaciil Xawaadle ayaynu halkan maxay tole maanta u fadhinaa oo ay taariikhdu tahay waa tirsiga islaamka lixda bisha Rajab sanada 1442 kuna beegan tirsiga miilaadiga 18 bisha labaad 2021 haddaba waxaynu ku furanaynaa sidii caadada inoo ahayd xafladeena aayadaha Quraanka Kariimka oo inoo akhriyo walaalkeen القاري حسن نجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. dhaqankoodii ku camal fulkooda waxaynu ugu anfaco aayadaha Quraanka Kariimka inta kadib waxaynu u gundadageynaa sida ay xafladuhu u kala horeyn jireen in maxay ahayd tolay qaybtii maxay tolay weydiisashada iyo maxay tolay meherka markaas waxa maxay tolay aan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka oo aan ku wareejinayaa Chief Caaqil Cabdillaahi Umar Hayd. الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد حفلة إن أنت اللي يسكوي دي سنة مهركا صلادين تا عقاشة مضحدة قميدية دلينيرة تيتل كستبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كبعدي وحنوقف قد بيا وحندون الناس سفك يجان كسو جيدا حق بريقا سفكينا قلبيت كسو جيدا إنا نسيسان هودن إبراهيم إسماعيل غريرة وأنو دون إنه مصطفى آدن عبد حاج نور أنو دون إنه إنا نسيسان وقد إيا قبيلو إيا قرنبا أنو سيسان. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. marka hore shirka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Su'aasha jawaabteedii haddaan u gudbo hodan Ibrahim Ismaaciil qurnimo ugu doonaysaan Mustafa Aadan Cabdi qurd iyo qoys iyo qabiilaba waa idin siinay. halkaas waa 20 milyan oo gabaatiya halkaasuna waa 2,000 oo dollar oo reerku leeyahay yaradka geelina waa idin dambeeya waxaan doonaynaa inaad noo raacisaan meherkiina waa idin raacin. إبراهيم ما وكيلتي خلاص. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. waxaa halkan noogu taala inanta in 100 gram oo dahab lagu meherinayo sida ma la waafaqsan yahay way Mustafa mataqaana iyadoo inanta waalidkeedii wakiishay adiguna taman adeegninkii inanta guursanaya tahay waxaan ku meheriyay inanta la yiraahdo hodan Ibrahim Ismaaciil oo meherkeedu yahay 100 gram oo dahab ah oo markay doonto ku weydiisan karto sida ma aqbashay waan aqbalay kan waxaan ka aqbalay mantaqas aan mar kale ku celiyo ilanta la yiraahdo mataqaana hodan Ibrahim Ismaaciil oo meherkeedu yahay 100 gram oo dahab ah oo waqtiga doonto ku weydiisan karto saasan kugu meheriyay ma iga aqbashay waan ka aqbalay ma sha Allah taala inta kadib gabadhii saacada laga bilaabo waxa weeyaan gabadha hodan waa mataqaana xaaskii Mustafa ay weeyaan ilaahayna waxaan uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu isu barakeeyo duriyad khayr qabto ilaahay oo kala siiyo kuwa khilaafka ilaahay ka ilaaliya oo noqdo mataqaana mar badan baa iyagu reer inta isguursadeen markiiba la maqlay halkii waa isku kaceena kuwa isku daa'ima oo ilaa iyo intii gaboobayaan is haysto oo wanaag mooyaan xumaan kala arkin ilaahay ka dhigo innagana subhanahu wa ta'ala dambigeena ha dhaafo inta waxaan ku boorinayaa Mustafa marka mataqaana aad hore halkaas soo fadhiisatay iyo imika farq weyn baa idin dhaxaya xil kuma saarin markii halkaas soo fadhiisanaysa laakiin maanta xil weyn baa ku fuulay waxa laga doonayaa inantaas hadii la ku ran yahay aabaheed ku siiyay ee kugu sharfay ee macna aabaheed qolo kuma sina tulka dhan baa ku siiyay inanta inaad mataqaana si wanaagsan u dhaqanto oo aad ka dayso wax aliya wixii mataqaana xumaana haday noqoto af iyo haday noqoto gacan midna mataqaana xuquuqda ay kugu leedahay si wanaagsan u dhaqanto dadka ka waalidkana waxa laga doonayaa iyaguna inay sidaas oo kale reerka si wanaagsan isugu hayaano maanta hadii la kooranayo odaga muxuu ahaa inanta dhalay yani waxa weeyaan maanta labada inanka iyo inantuba caruurtiisa way ka mid yihiin marka si aad dirtay asaguna inuu dhaqan wanaagsan iyo hadal wanaagsan iyo muuqaal wanaagsan ula kala dhaqmo ayaa la doonayaa inteena kale wayn u ducaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala labada qof labada dhalinyarada ilaahay inuu soo barakeeyo ilaahay u soo bariyo dembigooda u dhaafo direed khayr qaba ilaahay kala siiyo sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
oo halkaasi maxaa la oran jiray waa balidi bahalkan aan sheegay inta lacagta soo celiyay therefore saddex qodob bismillaah halkaasi waa lacagtii tolka 20 bay heedo 7 soo celino wadee jaamacadii iyo gudidii maxayda garxajisba meesha waa fadhidaa waa taamasantahay marka laba saddex qodob protocol uma sheegaya runtii waa xaflad dhaqan oo maxaan ku dhahdaa ay isugu yimaadeen in badan oo kamid ah maxay toolay labeentii dhaqanka iyo waxbarashada ee dadku sidaa daraadeed waxay ka codsanaynaa laba qodob koow wax dhaqan mooye wixii maxay toolay siyaasadda waa inaga reeban yihiin waxaan ugu soo horeysiinayaa qolada maxay toolay dhaqanka intaanan qolada dhaqanka u galin waxaan ka soo horeysiinayaa kooxda waxbarashada waxaan halkan uga yeedhayaa oo il xafladeena maxay toole ku safreynaa walaalkeen Mustafa Soodi xafladiisa inuu kelmad aad u qiimo badan ka yiraahdo presidentka jaamacadda Hargeysa Dr. Maxamuud Yuusuf Muuse alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah كل واحد ما حفلة دقل الرؤوس وقوية الجامعات يوصل تاي برتي بركة وحلاي مصطفى يهودا إلى سوكي بركيات مرلبات سو الشيخ التلمامي مصطفى بركة تسوق شيء القامات يساعدكم ريم واحد كري بركة لكن هذا لا قبل واحد من قيس من هذا غير مصطفى سبتش هذا لا قبل هذا ساعات دي كلمة أعطيه ورا خوي أساس سبتش هذه أقول أنا قلنا اللي قبل شوي هذا واحد هذا اللي قبل شوي لبر غير أو أكسو كريجيدا ولا بقيس أكسو كريجيدا ما تودى مصطفى يهودا ما أنت واحد يسوق الدنيا هذا هاي نقدر أسرة ممتدة واحد يقول أما extended family أما family لا family وكذا كسي فعاوي هذا زي سوق الشيء واحد سبدري وكذا يدرا ما أنت لقى بلا واحد طول يحيد دي طواليات وركا واحد الله لي وحي سقاب كذا نقول تشتغل لما هو يسبدري أما سبدر فرمان أيه هو عليه كاتانا في ستة مسؤولين القادة أيها الوبائي كل ضياش نقل خيا كان يطورا إن بدن إلا كيس مركا إيران الله سيء إيران وذاك أنا بري هو ترداد بشر كل شيء إيران يهو إيران ترى كاس إيران تاسو أتى كاه رئيسو تيدي دوت غير كا هكذا دمالوي حتى هكذا حكسيس واي نايرة هي أنت ولا الجرو هدي إن كاسو كهري وتيسي نقطة غير كا حق الدمال واي بورج كأنت نقول لنا أنا ولا واي تاس ما أنت رقم بالو شوعي أقول لك شوعي طلب رأي ما أنت وعالكاس مناسبات كستبة كلمة ده اللي وحفل يا أون إن طرقات في رمضان أو رهينة أو لو هيامه ينقل سوا والبقية طرقات marka dulqaadkii fara badan laana nin dulqaatay ayuun baa wada reer laakiin ninaan dulqaadan reer ma wado dumarkuna wayo maxaa ku dhahday waxyaabo badan bay leeyihiin marka waad arki doontaa insha allahu tacaala hoos baad ugu degi doontaa taas ayaan ku faraynaa dhammaanna maxaa ku dhahday bahda ka soo qayb gashay waxaan uga baxayaa kolley oo dee tartaabin doona haddii aan ka dhigo anigoo ku hadlaya dee kolley magaca jaamacadda aad ka tirsantahay ugu weyn dalka dadkiina dhammaan hambali ayay kuu soo diraysaa inta halkan joogta iyo inta kaleba aad ayay mahadsantii ilaahayna suukii barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay aad buu u mahadsan yahay presidentka jaamacadda Hargeysa waxay inoogu xigayo in makana maxay tole mikrofoonka ku wareejinayaa inuu isna halan kelmad inaga yiraahdo abwaan Cabdiwaaxid Cali Gamadi assalaamu calaykum midi waa iga xasuusinee si aanu af Soomaaligu inooga xumaanin maxay ahay tooy
iisoo qabooy ma aragtaaney ma ogeydey ixusuusiyey een af soomaaliga ha laga daayo taasi waa iga xusuusin oo ha lagu baraarugsanaado intaa waxaan u dhaafayaa hoosba hadal lebay soomaalidu tidhaahdaa ninkaasi waa ninkaa guursaday oo waa nimaanu saaxiibnay ninkaa Mustafa Suudi guur baa la yidhaa kelmadda haddii la isdul taago waa amar hortoo guur cidda isguursateen u guur ama way isguursadeen oo iskarabsadeen oo kale weeye eentaa weeye way iskarabsadeen way isu guureen labadiiba xil baa fuulay af Soomaaliyaana way iga baraarujintaasina intaa waxaan ku darayaa ragga ninna saru u guursadaa ninna hoos buu u guursadaa hoosu guursigu waa wixii sharciga waxa weeyaan aan waafaqsanayn meelahaasuu ku wareentaynaya oo saxabaal weeye ninna saru u guursadaayo dee waxa weeyaan tii rasuulku waafaqa salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi laa nikaaxa biwaliyin wa shaahiday cadlin calaa macna alxadiid daahir yaa shamis buu idhahdaa wataa warkaygu waxa weeye si xalaala oo cad waa halku gabayaagay lahaayeen dhafadhaafka baanaa haddaan hadalku dheeraanin mar haddaan qabuulkii ka dhicin niman la dhowraayey dharaartaa gabaatiga haddaan adigin waxaad hayso aqal dhaga lamada dhiina iyo hohob dhalaalaysa mar haddaan xiriir loo dhisayn guurku waa dhicis buu oo guursiga iyo wareentayntu ayuu ninkaasi ka soo horjeeday intaa waxaan ku darayaa ninba waxbuu takhasus u leeyahay nin duca tageena oo duca yaqaan baa la yidhi duca ka waran wuxuu yidhi marka la kala kaco faraa sidaa ha la yidhaa bayda sidaa ha laysu saaray buu yidhi sidaa ha la yidhaa buu yidhi ha isjeedhana kol hadduu yidhaa aryaa meeshan kabaha iyagii naga siiya inkaar baa taransatay buu yidhi taasina waa kaftan meesha ku jira intaa waxaan ku darayaa halkay u dhimatay oo ah بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير أو في الخير سبوا حدا أيان الله يا هاي الله وبركاته وبالله التوفيق إما كان وحي لو دغينا qaybtii dhaqanka marka suldaanki guud waa inoo jooga gudoomiyihii guud garxajis waa inoo jooga gudoomiye ku-xigeenkiisii waxa kaloo jooga salaadiin iyo maxay tole cuqaal kaloo tiro badan siyaasiyiin ayaa maxay tole inoo jooga intaba waxaynu kula dardaarmaynaa in maxay tole xafladu ay dhaqan inoogu soo dabaalaata mar walba oo aan xaydaabka dhaqanka maxay tole aan laga bixin imika dabadeedna waxaan u yeerayaa ninka la yiraahdo Master Xariir Jaamac Yasir oo ku magac dheer maxay tole Dhakabuur waan iga codsaday maxay tole waa la qoray kelmadda maxay tole naanaysta isna maxay tole waan ka codsaday intaan ugu yeerin inuu kelmad maxay tole yiraahdo kana socdo xagga inanka soo dhaw xaaji بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار تقييمها له رقنك يا سياسيين تا يا دلنيرada يا ganacsiga يا qolada saxaafada dhamaan iyo intii aan dhaafay halkan fadhida waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh marka hore inanku wuxuu ku celceliyay haydaanka dhaqanka yaan laga bixin oo siyaasad loo gudbin ee dhaqan ha lagu eekaado kol haday laba garxajis tahay inanka iyo inantu awalan wax siyaasadaba lagama hadli jirin taa waa ku bushaareynaa horta qoladiinan hadalka ku celcelinaysa تويشي أبترسيمو أنا ولا بقر حكيسو إسو شيء مين تانا وتبشار سنة سانو ننا عقل ما تسياسة كهاد لماي ولا بقر حكيس ولا بعفورة ولا بده يدي قعمود كلي سلطانتي قلنا وفرديا سلادينتي قلنا وفرديا ما شاء الله داود ومركو غوريسه waa soo dhaweynayna iyo salaadiinta uu hogaaminayo gudoomiyihii ina waa fadhiya anna xubin gudida kamida baan ahay
inanka iyo inantu waa labadayada gacmood waa labadayadii caruurood kollay annagu haddii aanu nahay mustambeedka halkan fadhiya guddida garxajis teetal baanu haysaanaa ilaahay baa guusha leh dee dadkii gacan libaax idinku shiriyey garxajis mideeye baanu nahay intaa meel bay idinoogu qori mustaqbalka kuwa naga sii dambayn doonaan halkaasay ka sii dhaqaajin doonaan inanta iyo inanka iyo inantu maasha allah waa labaduba waa garxajis waa labadii reer boqor oo dee garxajisku dee waxliba wuxuu leeyahay boqornimada dee carooyinka uu isdheeri waa isu baarigaynaa waana isu ducaynaynaa allana ha isu barakeeyo weliba inantu dhinaca siciidka laba ayeeyay ka soo jeedaa xaggaana abtirsiimo dheeraada garaad markaan hadlay horta telefoonka waxaad dhegta u saartaa waxaan maaraya garaadkii inantu weliba xagga siciidka laba ayeeyo abtirsiimo ah bay ku leeday taasuna waa taa halkan wuxuunbaa ka xaasila duco ama geelisa siiya ama lacagisa siiya annagu kol haddii aanu nahay guddida garxajis ee guud inanta garxajis xurmuun baanu ku leenahay waana ku ducaynaynaa wax siyaasadina way hadhan yihiin wixii iga dambeeya hadalka ha koobaan wuxuunbaa ka xaasila duciya in shilimada la qaybsado la isuna duceeyo aad iyo aadna loo mahadsan yahay الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan u ducaynayaa caruuska iyo caruusada aadan cabdi mustafa aadan cabdi iyo hodan ibraahim ismaaciil waxaan ugu ducaynayaa ducadii rasuulka barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa baynakuma bil khayr oo fil khayr waxaan ugu ducaynayaa ducadii dhaqanka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dee ubad rag iyo dumar bale kala siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa adduunyadana nimcada ku hela aakhirana janno ku tagayna waa la ka yeelo intaa haddaan ku dhaafo xafladan waa xaflad qiimo leh oo aan baryaha iyadoo kala arag waxa fadhiya suldaankii guud ee Somaliland waxa fadhiya suldaankii guud ee Garxajis waxa fadhiya gudoomiyihii Garxajis dahaba ka qaban gudoomiye ku xigeenkii iyo qaar kale oo badan iyo waliba deedinkii jaamacadda iyo jaamacad oo dhan marka dee caruuskan waxaad inankan ka garanaysaa qiimihiisa iyo inantan dadka yimi marka iyada dee dardaar badan cid u gelmayso ninka intaas qof oo wata dee inan yar cidina dee oran mayso dee ilaaliyo isagaaba iska ilaalin doona inantana waa ina Ibraahim Qarayare waxa weeye horta ninka aabba wanaagsan dhalay iyo inanta aabba wanaagsan dhalay dadka way ka duwan yihiin inay iyagu gaar isu ilaaliyaan waayo dee inanta Ibraahim Qarayare waa raggii magaaladan dee number 1 ka ahaa dee dhismaheeda number 1 ka ahaa hoteelada waaweyn ku lahaayo cid aan garanaynin ma jiro inanta waxaan leeyahay adeer haddii wax ka xumi ka yimaadaan waxaa la oranayaa mayntii Ibraahim Qarayare dhalay baa ayaa waxa samaysay finish dee abaheed iska caadi ah dhulka iska joogay lama mid tihid marka adigu gaar bay isu sii ilaali Soomaalidu waxay tiraahaa ninka ninaan carabka iyo madaxa cunin ma jiro ninka gabadhiisu qarsoon baa qarsoon macnaha madax iyo carab la cunaya ma jiro waxa weeye ninaanadu wax xun lagu arkayno de waxaad yar diidaa aanad ku arkayn intaan hadaan ugu aad u sii wacdiyo xaqaasaan deelaanahay ma jiro wuxuu baa qarsoonta ninkeedu adigu hadaad ninkaaga qarsatood wixii yar aad aragto de ila carabi labadiis daamba isqoonsadee hadaad iska qarsatana de hadii kalena marka waxaan kula dardaarmayaa inaad iska qarsato arintana ku celceliseen baan ku soo gabagabeeyay siyaasadda waan garanayaayo ardaydan jaamacadda cid walba oo leedahay de madaxdan iyo waxaan waxay isleeyihiin nimankii Garxajis cadhaysanaayo idaacada wax ka akhri jiray ayaa wixii bilaabi doona har sheekadii imka waanu bedelo
sheekadii waanu bedelay waxa quraynu doonaynaa waa cod ku noo doona nimayow assalaamu calaykum waraxmatullaahi iminkana maxay tole waxaan mikrofoonka ku wareejinayaa suldaan maxamed cawad sala allahu calayhi wasalam marti sharafta kala duwan salaadiinta guud cuqaasha salaadiinta kale marti sharafta faraha badan leh gudoomiyeyaasha jaamacadda hargeysa iyo madaxda kale jaamacadda ka socota waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa xaflad dhaqan oo meher oo aynu maaragtay ugu ducaynayno walaalkeen mustafe aadan cabdi iyo hodan ibraahim ismaaciil xawaadle qarayare waxaan leenahay baaraka allaahu lak wabaaraka calaykum wajamaca baynakuma bilkhayr wafi lkhayr intaa ka bacdi aniga waxaa sharafiya maanta inaan arko saaxiibkay mustafe oonu aada saaxiib u nahay registrarkii jaamacaddana ah hargeysa dhammaan madaxdii jaamacaddana halkan ay joogto aniguna ambahda jaamacaddaas ka mid ahaa brofesaradeedii baa fadhiya waxaa fadhiya naasir maxamed cali gudoomiyihii jaamacadda waxyihii kale ee jaamacadda dhammaan aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa inaad nagala soo qayb gashaan xafladda mustafe oo idinka tirsan oo bahdiina ah aniguna bahdiina ka mid ahaa bahda dhaqankana ahaa laba masar baan jaamacadda ka qaatay oo waa jaamacaddaydii waa gurigaygii imankana mid saddexaad baan usoo socdaa insha allahu naasirow insha allah waxa weeyaan waynu ducaynaynaa uun waxaan leeyahay ilaahay ubadka isu barakeeyo dadkii ubad khayrana ilaahay siiyo kuwii dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda anfacana allah ka yeelo dhammaanteenna intaas lagu ducayna wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu suldaanka waxay nagaga soo baxday oo kale dee inuu suldaanku yahay maxay toolay aqoon-yahan isna double master alxamdulilah brotokoolka xafladdu wuu noo qoran yahay marka insha allahu tacaala intii aan ugu talagalnay waanu gaadhaynaa halkaa haddaan maxay toolay kelmad yar booba oo halka cali sugile ilaa naxariistee ninkan la dhaa maxay toolay mustafa suudi oo aanu muddo dhowr iyo 10 sano bahda waxbarashada ku wada jirnay intii hore aan isku arday ahayn ayaa waxaan xasuustay halkaa ma dhaweed aan oo taagan gabiga Haraawe ahaa inkastoo farii tahay haddii aan lagu furin fiicnaantu kaliya maxay kuugu filan tahay inuu abaabiraabi ahaaban aad iyo aad u filayaa marka waxaan maxay toolay ugu bushaareeynaya qolyahan maxay toolay wiinta ka guursadeen walaalaha nahay mustafa qoyska helay waa qoys maxay toolay helay qof leh maxaan ku dhahdaaye aqoon qof leh maxay toolay amaano leh qof maxay toolay arin wanaagsan leh inta ducada maxay toolay ku darsanaya deynantana waxa bay noogu filan xaaji ibraahim garacsada quramaha waa shaqaale diineed oo aan diinta ilaahna maxay toolay ka shaqeeya oo cagtiisa iyo maalkiisa iyo maxay toolay hantidiisa bagaliya Allah subhanahu wa ta'ala waxa ugu barayaa cid la aqbali doono ducada salaadiinta iyo ta macallimiinta iyo ta ilaahay baa ogday marka ducada waan isku wada biirinaynaa marka Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga rajaynayaa qoyskii maxay toolay lagu nasto ee lagu nagaado wad khayr kala helaa inta kadib waxaan u yeerayaa oo maxay toolay iigu xiga qaybta maxay toolay kale caaqil Ali Ahmed Abdullahi ciri barakale marka hore madashan qiimaha badan dadkan ka soo qayb galay nooc kasto ay leeyihiin waa salaamaya baan salaam islaamku assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib madashu waa madal duco halkan dee qoys baa fadhiya laba qoys ma fadhiyaan xaafad baa fadhida saan u arko waxaan leeyahay reerkum baynu ducaynaynaa insha allah billahi kariim qoyska inuu dhisnay ilaahay qoys barakooba Allah ka dhigo awlaad khayr qabta Allah siiyo arsaaqad ballaaran Allah siiyo kuwii dadka xiriiriya Allah ka dhigo innaga ilaahay ajir iyo xasanad inaga siiyo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wax kale waxay noo soo marka hore xafladda waxaynu ugu talagalay inuu noo soo xiro suldaanka guud ee Daawud laakiin uu daarasho ka timi guddiga dhaqanka maadaama uu suldaanku ku cusub yahay saaxadda isla markaana dhaqan ay noo ahaan jirtay in muddo 40 days beelahaas maxay toolay suldaanka la afartan bixiyo kalmadiisi waxaan ku wareejin doonaa maxay toolay suldaan
suudaanka inoo soo xidho haddaba waxaan ku wareejinayaa guddoomiye ku-xigeenka guddida garxajis suldaan axmed cismaan الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. waxaan leeyahay inanka iyo mustafa iyo hodan ibraahim ba mustafa aadan cabdi iyo hodan ibraahim ismaaciil ba waxaan leeyahay baaraka allahu lakum wa baraka calaykum wa jamaca baynakum fi khayr insha allah bikayr. intaa kadib runtii waa xaflad aad u qurux badan bahda waxbarashada maanta waxay aad iyo aad ii soo jiitay sidii qoladii maaragtay wariyaasha isu hiibiyaan marka inuu guddoomiyihii madaxweynihii jaamacadda hargeysa uu joogo aad iyo aad baan maaragtay ugu hambalyanaya dhammaantiin in la isgarab taagtaan maalinta midadigamadii maaragtay howlahan oo kala qabsanayo aad iyo aad bay munaasib tahay waana ugu hambalyanaya. intaa kadib dee wax badan oo odhan mayno reerkan labada dhinacba waxa dhaqanka iyo caadada iska leeyihin halkay nagaga jiraan waxba ka gebci maayo dadku waxbay nuuneeyeen sideedaa lagu dhawaaqaya inan baa heesto waxay tidhi dhalasho aan xirsi hayn iyo dhexalin aan cabdi hayn waa wax laga dhuyaalaa dhulkaba looga dhiiga inteeda kaleba soomay qaadan labadiiba isu yimin marka waxaan leenahay alla isu kii barakeeyo dee madax baad haydeen taariikhda meelo badan bay kaga jirtaa waa idiin hambalyeynanaa inaan magaca iyo taariikhdaas sugaan ahaan iyo dhaqan ahaanba ku leediin aad iyo aadna waad igu hambalyeena idiga masluugi mayno iskiin barbar dhigi mayno waxba idin radiyan mayno wixii taariikhda idin kale hambalyaanu leenahay laba madaxa isu timi nusqaaniun yaa idiga imanin labadiina dhinaco nusqaaniun yaa idiga dhimin taana intaasaan leeyahay magaca guudba talabaad waxay nagu soo kordhay sharaf iyo karaamo ilaahay kii odaygeennii dhintay ee suldaankii ha u naxariisto inankii yaraa u dhalay bedelay culadkiisana waa kaynoola fadhiya waxaan diga codsanaya horta inay noogu ducaysaan inuu ilaahay inoo barakeeyo waa maalintii ugu horreysay uu soo fadhiistay xaflad beher inay nala jaaqa waa markii labaad maasha allah mid baa iga hoos baxday cidlo kaaga bay dhaweyn baan islahay marka waa tii labaad waxaad ogaanaysaan inuu laga bilaabo maanta idigu dhex nooliyo dhinacna idinga dhaqaaqay intii isla soo qaratay ummadda guud ahaanba garxaysna allaha gargaaro allaha barakeeyo isla waa markii labaad uu soo fadhiisto saasuu inoogu dhex jirayo u duceeya adigana waxaan ku leeyahay sidaa maanta aad u soo dhex fadhiisatay waa laba jeer ilaahay kaama dhex saaray dhinacna uga dhaqaaqi maysid dhinacna uga dhaqaaqi maysid hadduu ilaahay nafta kuu daayo baryaha dhaqan baynu toogka soo taagi mayno badaaladiisii baa joogo dee maxaasu waa soo jireenoo heestaan tirinay yaana waxaa idiin fadhiya suldaan cismaan suldaan cali suldaan madan maxaasu saasay soo abtirsanaysaa marka imanka isaga intuu joogo dhan wuxuu odhanaya de isaga u odhanaya ilaa inta uu cadadbixiisa gaadhayo dhaqan baynu leenahay sida dadka noqon mayno siidhiga kolba yeedhin mayno halkeedii baynu gaadhsiinayna maalintaasayna wadda ka qaadi doonaa biidni illahi tacaala inankii inanta allah isu barakeeyo inanka maabti baanu naho labada kaadhbo iyu yimaadeen labada dhinacba waa layga casuuga runtii odaygayna dee saaxiib baanu nahayn rag kaloo aadan aada isugu dhadhuulayo aan u yara cadaysnaaday mustafe garaadka ayaa isaguna ila soo hadlay dabadna waxaa war abtiyaashii bay iga soo horreeyey dee waan haystaa kaarkii marka alxamdulilah sharafbay iyo karaamay naga mudayin allah isu barakeeyo celi baraka allah ka dhigo haddaan halkan taariikhdii suugantan akhriyana ay daba dardaarantay mise waa laydiga doonaya waa kaas iyo magaca sheegateen marka labada reer siday ahaan jireenna wax kusii dartaan mooyaane inaydan waxba kasii rusqaanin weliba inaabtigay baa mas-uuliyadda koowaad mustafe aadan baali cabdi waxaa lagaa doonayaa teetalkaa iyo dhaadashadaas inaad buuxisid wax kastood aragto inaad ugu dul qaadato waa feer qaloocan baa la yidhahdaa dhammaanteed waa nicmo loo baahan yahay marka inaad ilaaliso waa shay aad uqaaliya aad iyo aad baad mahadsantihiin wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ahaan jireero darawalka iyo askarigu labaduba midna waduun buu yaqaanay midna muxuu yaqaanay qabo iyo qoriga guri runtii waxaan filayaa badoodii waxay kusoo beeray ninka dhaa macalinka macallinku galaas iyo arday iyo qor iyo imtixaan diyaari iyaga aamus ugu garanaya mararka qaar baan masaajidka halkaa baanday ku leeyay ayaa laga raada wuxuu masarkaani oo dhan dawaa jamci tukanaya markaas halay cudurdaaro haddaan qalday maxaa toolay
سلطان عدي قدين يهاي بحاجة لقدة بحاجة لقدودية قدة الحديث وكل يوم بدون ما معلومة اللي له ذاك لا تروح بالكمور هنا فلا يحتاج كل ما نكون مشغولين هذه أقوم هسيها السلطان أحمد عثمان عدي قدين وحياة هذه قرأت هي محاجة ولا بس سلطان حبيا الناس السويقي وينود الدولة هاي قرأت هي لو سلطان ما ينام على مسكن وما يستمر لنا إنه كان حبيا يا سلطان أحمد حسن سلطان آدم حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن السلام يا قف والبتيت الروسيتو وهي عملها على وقت غير مديران. مرات حمد عيني يا عروسة يا عروسة وأن دعي بعد رسولك عليه الصلاة والسلام بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير أو بالخير. أنت عندما كنا فوق دعاء هي سلامتها تضاعنا ولا لودي وفي الأيام ما إن وحلو كل شيء ماشي حكم وضوء ده سوكا هذا اللي يجب أنه ماشي جوا متشرو كل ده اللي سبحانه هينو غيره سبحانه يعني هاي ويسوي شيء من هاي كل دي اللي السياسة اللي هذه ما يو وقت اللي بتشوفه بحكي ولا سكر دافناي انت أيام جميل لها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. وحنقول يا مكان مصطفى محمد عمر قرأت. بسم الله الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa waxaan munaasabadan sharafta leh aan ku horeysiinayaa ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam goobtan oo kale uu ka akhriyi jiray waxaan leeyahay baaraka allahu lakuma wa baaraka calaykuma wa jamaca baynakuma bilkhayr allah isu barakeeyo labada carruur aynu isa siinay waa jaamacaddii oo aynu isa siinay baanu maraynayaa dee ilaa guddoomiyihii baa jooga marka anugu laba midhoo kaftanu baan odhanayaayo ninkaa caaqil cabdirasaaq baa igu yidhi markii uu caawad ahaa دان ماصر نبان مقلين أنا بيه أيوة دوار كحية شيء قلت تماما كراساني ولا اسمه شهادة رسالة يا بنا كان اسمه ما أي دارو أكاديمي ما نوتها مع دائما ومحمد كي هيك دوريا لأني كي ينور فديا وكان محمد عمر بدي مركانو نينا رسالة يا ما يدي عوض واحد يرد إنه واحد هيسافر قراءة كه مركاني نينا أكاديمي أنا عاقل لو تيجي ما هم حيدوي taas waa intaa waa inaanu dhaqanka dheernay midda kale waxaan sahay guddoomiyaha ka jawaabi dowladda guddoomiyaha tahada isu saamaxnaba waxaan sahay guddoomiye wuxuu odhan doonaa waa raggii garxajsiska waataynu kolkaynu nidhaahno garxajsiska halkaa ku shiray waa intii wadani sheegta raggii idin odhan jiray mideeyey arrinka أنا جبت الحريرو رجع أهله نقول لي مثلا بيسوي بيرنا يعني واحد تكتي إلى بيكو فانتابع يوم شكله هذا عقل عبد الرزاق يقرأ كرجع هو قال لي قرأ كاسبر إذا بيسوي بيرنا وصدقني اللي بيتوا عليه هذه لو شيئا ولا الشيئا هذه لو شيئا ولا الشيئا يقول نجرا مكرر مساجي جيبا مكرر مسا أنا جيبا بشيء مكان جبت كعلني يقولي لي كرحس كبيرة تيرو إلى هذا واحد هني جودي ذا بحيث يهيل جريء إلى إستحباب قادر كحس ولا نتشوف مو تاسي فريان إذا صار هذا كسر قبل يا وأنا بحيث استماع السلام يا سودان سودان كله ده جودي ذا هو مستبد كذي في سودان كمية قبل ما شيء والسلام عليكم اوكي وما سيهي شيف عاقل عبد القلوب كهولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سلطان كبود بلا سمالنا أولي سلطان داود سلطان محمد سلطان عبد القادر سلطان كبود بلا هاك الحجيز هذاك سلطان عثمان سلطان علي سلطان مدر سلاطين تيجا ددا عقاشة فضا تعليمته
oo darac cusubanta loo yimaadeen dhammaantiin qof walba jeedta ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa xaflad dhaqan waa xaflad meher laba iscalmaday iyo reer iscashaqa isugu yimid allaha barakeeyo kuwii isku xidha reerka ah horena way isugu xidhnaayeene ayaa ilaahay ka baryaya annagu haddaan reeroodka nahay ma ammaana inanka maantoo kale inantaanu ammaana inantuna hadday cabdi cisab tahay wax kastoo tiraahdo nin baa kaaga horreeya horaa loo ammaana wax kastoo tiraahdo horaa nin kale u yimi inaad iska daba gasho kii mooyaane haraad baaba lagu diri jiray saa kolkoo soo noqonayno maalin bay xusoo wadno laakiin haddii inta laga soo qaato halkan gawaadhi yaryar oo bacan lagu soo gurto hablaha noogay dowladayoo nasiiyo iska qaarkood waa qaar nasiib badan kuwa maanta jooga hablihii dee aan oogeyn waa qaar aad ugu nasiib badan waxaan leenahay ninkoo nasiibkii kuwaasoo rag bay ahaayeen oo dhibtood bay ka marteen laakiin waxay dhali jireen kuwa dhibta laga butaa rag dhaxalgala ayay dhali jireen inantu marka laga farxiyo reerkooda ee qiimaheeda la dhigo iyaduna waxaa ilaahay ka keenaa mid taabagala oo reerka anfaca waan ku soo wada jeedaa haddii makaragayga halkaa fadhiya la eego ee reerkaa ka socda maanta guursaday inantaa miyaa reerkaa galeen reer cabdi cisane lama jiro ilaahay ha barakeeyo horena waa lagu barakoolay imakana waanu jecelnahay waanu barakadiinaanu rabnaa hablihiinna iyo inamadiina waa isuukaay mid tolkayaad tihiin walaaladeeyaad tihiin soo dhowaada anana waa soo soconnaa idinla soo socda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxda sare xisbiga ucud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطان الجود إيه سلطان الجود إيه كحجيس دمان بهوي قصة بين الشيء حفلة المناسبات مهلكة عروس يا عروس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقولين هرت وحنا نقول دعية يا مصطفى يهضم بقى دعاء رسولك بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير أو بالخير إلهي قوس بارك الله لك كيلو كيلو برانو إلو كيلو أمة خير غبا إيو أولاد خير قبتك هلا الله كيلو سبحانه وتعالى أنت رتي ده وقت بدل شغلي ونفريني هذا كفت بدل ما كان عاي عبد الصار يهرك ولا يقرأ كيو هذا الله كفتمي ما كان منه بدي حسين لها يوم ما دام عبد الصغيري بلوتك الحديث واحد يصير عضو هذينا وهذا كده يراي وحيوان خاصة ولينا أنا ولا هذا حسابت معارض كنا بريها الدولة معارض كمني هنو واحد نسري بالدورة شنو تخصصتها ما كان دورة شنو بالو هذا إنه سوق قبلنا فلو كده قبلنا أي فوقنا أي haddii kaalintii mucaaradnimo la gabay dee si kale horta u arkina dan baan moodnay si walba u dhignay in doorashooyinkaas dalka u dan yihiin baan aynu aragnay de marka ninka wax naga xidhnaayeen inaanu sasabano oo doorasho ka dhiraana hidho ayaan dan moodnay laakiin insha allah markay doorashadu dhacdo de wixii la saxi karo waa la saxaya haddii ala dhaha insha allah laakiin kaalintii mucaaradnimona waa la qaban doonaa marka waxyar baa noo hadhay doorashooyinkii gacantuna shacabigii ku jirtaa maanta ciddii kala dooranayaan iyo ciddii foonteynayaan dardaarankaygu wuxuu weeyaan ciddaan maanta codka siinaysaan u meeldaya oo dad u qalma oo dee mas-uuliyad weeyaan qaadaysataa xil baa idiga wasaaray dhammaanteen halkana dee habdoorkii Soomaaliya baa joogay u meeldaya marka insha allah ilaahayna waxaan ka baryayaa inay doorashooyinka loo dhacaan sida bibiya ku gaadho abaar baahsan baa jirtay ilaahay subxaana watacaala ay naga soo furto oo maanta dee runtii kulligeeda leh ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu dad wanaagsan oo xilkaa qaadaya inoo soo baxaan marlabaad arooska iyo caruusadaba بارك الله لك وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هي كلمه سلطان اسلام سلطان علي سلطان مدر الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا مولانا محمد إلهي بقى معاذ يا رب تبارك وراه حسك علينا العرب كبر المهضة إلهي البرد ومهض علينا عليك من هاي المهضة عرفت إنه علينا بالطواء وعنت أنت أسوأ برارجين حفلة شرفت على معموس كيم الجهالنا ويسكيرا إنك يرن تعلم ما تستوفتيننا ما تهلك الوجود عيننا وعلي رسول كان قد عيني يا بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير لا يوحي كبرينا انتهى هذا سيرها اليوم ويسبر كلنا العين ورجله سبحانه وتعالى هو تخبي بعضين بركة إلهي يوحي كبرينا دعانا لو دعي اللي يندعي مصطفى على فريه إلا هي موفعه مثل حياة هذه وقت بدن سير كذا يو هاي ملهي الشقية عينان وقت هذا على يدين كلهم waxaan intaan ku darayaa waxa weeye inanka iyo inanta safow inantana dee xil baa saaran laakiin xilka weyn adigu ku saaran adaa aabihii reerka ah inanta adaa mas-uuliyaddeeda maanta fagaaraha iyo mid diineed iyo mid walba ku qaaday waxaan hadalka ku ururinayaa waxa weeye aada iyo aad baa lagu hayday waa in lagu sheegaa waa mudan tahay ninku markoonu hore guur soo maray ama dhalinyaro yahay wax badan baa ka qarsoon waxaa lagaa rabaa إن شاء الله تعالى كان الجيلية إنان وحونا أكسن مويان قريقاقا وحن إنان كسوبهن إنان تنا إنان ضدو قادتو وحدو قادو واحد إنان دمر كلا ترسلي خير مرة قبالي لو حقيقولي هذه دلائل هي راتكارك تبات والله محاي كاليسا لا خير مرة قوم نيكا دقا وحوي نيكا اسكالي إلان وحدل كذا ومقرين وأي واحد بدن بيحوي يلا والله ما كنا متقيسا بسوق رسالك وحنا كسوبات بعد متى عنا كاهيسا أدوكم موي waxaa laga yaabaa wax yaroo intaa laga inay dabqaan marka haddaad wixii yara kasoo yara wadhagta u dhigto oo tana maxay ka hadlaysaa reerma dhaqo waa inaad noqotaa inaad maqlayn wanaageeda mooyaane xumaa waxay ka imanaya inanta insha allah maanima ka imanmaysa laakiin dee waa xaqiiqada jirta oo dee qofka maaragtay yani maaragtay culayska fuulayaa ka fara badan marka adigana intaasaan ku leeyahay waana kaa rajeynaya runtii aqoontaada iyo deganaanshahaga iyo maanta maxaa hiday inaad insha allahu si wacan u daadihin doonto inantana ilaahay ha barakeeyo dhammaanna ilaahay ha idin barakeeyo waa ducay iyo dardaaranun halkan maanta inaguna waxaynu maaragtay leenahay iyadana inaga inteena kasoo qayb gashayna xasanaadkeeda iyo ajirkeeda rabbi hayna siiyo aada iyo aad baa maxay shirku u mahadsan yahay marka intaasu baan midun baan ku darayaa mustafaw oo adigii yidhi suldaanku inuu sheegaabay ahaye qolada guddida garxajis waa loo doortay iyagu may lahayn tababshaheeda iyo arrinkeeda may lahayn raggii hormuudka ka ahaan baa ahayd oo anigaa kuu marag furayn iyo dhammaanba garxajis weyne idinka markii laydin doorto baxad ka qaadeene haysan siinina in ilaa inuu garxajis urursano meesha isugu keentay